رب العالمين تاريخ دوا لباتن يا أفر بش السجالات ما أنت وحن وضع ولاشين بشارة أو dadka aan soo gudbina maalmahan ee baayaha gaarka qabo bishaaro muuqaalkeeda waad oo aragtaan sidaas ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u doortay anagana Ilaahay saam uu noo doortay waa imtixaan wali imtixaamayo bal walaasheen bishaaro maanta codsiga ay wadato bal aan ka wada dhageysano bishaaro walaal ku soo dhawow bismillahir rahmanir rahim magacay waa bishaaro maxamed bare waxaan ahay gabar jecel ilaa awlaad dhasho mar walba Ilaahay aan ka baryaa inaan awlaad dhalo waaya bina ad abo inuu soo darsado awood mulihi maanta joogo gufan uriyaan mar rabaan baahiya gaarka gobo inaan Ilaahay aan baryaa inaan aroobahan dhalo inaan biyo soo daraan in walaalkay ah inaan ku sheeno guur waxaan maqalay maalin Cabdullaahi inuu aabiyo dadka baahiya gaarka gobo soo oowed waan Cabdullaahi uu ay ana soo badakay inuu aabiyo guurkan ku homano naga guursan rabno shaqadiis waa gaar gacanle awood mulo hal inuu u dhigo guri aan oros in awooda nolosha kaliya waan u sameeyaa inuu aabiyo waan Cabdullaahi garna uu liso soo dhiso guri igala iga siiyo awlaad talaale aada lagu salaamaya sidaas oo kale garabkayga bidix waxa fadhiyo Cabdi Maxamed Xasan oo ninka naga soo codsaday in walaasheen bishaaro oo gabar qabta baahiyaha gaarka عبدي كوسو دو شعبك محسنين تا انو وحرن اي كداوانيو maanta maxaa ka codsanaysaa may ku codsaday hadii Ilaahay idin guur halaal ani aan ii gabirtan walaal isla galno markii isla galaanoon intaas la aawiyo geekiliidan ma abuudu weydistii ma abuudu an orosje ma abuudu sariirtii ma abuudu allan hadii Ilaahay aruu fiyawanti Ilaahay isiyo nolol maalmeedii qaadada magaalo joogi alxamdulillah isku shaqadeysada lahaay oroski iyo alxamdulillah intaasoo kala ani inteeba muslimiin ki dalka roog ki dibidi jaro ani li aawiyo ya alxamdulillah ya ambahana shaqada ilaahay dinna waxad magaalada Ilaahay ka roogo wal gaar gacan waay jamaal joogi ku raasida shaqadeedu waa gaar gacan ma awoodo waxaan aan ka ahayn nolosheeda balse waxaan u baahanahay in laga caawiyo gurigeedii jiifkeedii sida ducadii reerkeeda loo geyn lahaa taasina waa waajib ina saaran maanta waxaan rabnaa walaasheen bishaaro oo Ilaahay nagu imtixaamayo aad aragtaan qofka sidaas u socdo runtii Ilaahay uma waynin nagu uma waynin inuu toosiyeen uma waynin balse imtixaan annaga nagu imtixaamayo way hadii aan ku cibro qaadano aan caawinina Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo naxariisanayaa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa arrahimuna yarhamuhumur rahman waxaan rajaynayaa sida walaalkeen Ibraahim walaasheen markabo aan u caawino kale inaan ka dhigi doono qofka saddexaad waxaan idinka sugaabay insha Allah ta'ala si degdeg inaan ugu soo jawaabi doono baahiyaha walaasheen bishaaro iyo walaalkeen Cabdi assalamu alaykum